nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka badh ayaa wax kastoo ay qabtaan taswiif ku sameeya insha allah berraan samayn doonaa war maanta aad qaban karaysaa maxaa berri camal kale u dhigo maya berraan samayn doonaa wax kasta berru u dhigaya ama maahe brogramyo iyo barnaamij buu degaya markaasuu leeya insha allahu saasaan yeelaya sanadka dambe qur-aankaan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacadda ee balas inaan kaga baxo insha allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaasi inaan galo waxaan rabaa kutubtaa inaan dhigto waxaan rabaa cibaadadaa inaan sameeyo laakiin afku ka leeyahay waa barnaamij afka ah camal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax camal isuma bedelayo in wax la bilaangareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaangareynaysaa waa inuu yahay waxaad awoodoo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iskaga wadwado waa riyo kale un dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa waxaad balaangaraysay waxaad qaban karto waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badh baa fulanima haysaa armaa dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa armaa shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin nebigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacak wastacin billaah walaa tacjis marnaba ha caajisin bale nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray anas ibnu maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nebiga u shaqaynaya wuxuun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh allahuma inii acuudu bika min alhami waalxasan waalcajsi waalkasal waalbukhli waaljubn wadalaci addayni waghalabati alrijaal isagoo ku celcelinayoo leh ilaahu waxaan kaa magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada hamigu waa waxa soo socda uu qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada oo dabeetana qofku warwaro xusniguna waa wixii ka tegay qofka oo tiiraanyo iyo murugo ku reeba idan waa laba warwar ama laba walbahaar laakiin waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tegay midna waa waxa soo socda nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan galay wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay alcajsu waalkasal waa labadan xanuun aynu hadda sheegaynay qofku inuu cadam alqudra inuu wax awoodi waayo ama in doonistuba ka dhimato doonistuba inay ka dhimato oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buu leeyahay deetana wuu jiifaya saa baktiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa uun intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay sida awgeed buu nabigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga jubnigu waa baqaha waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya dabeetana si aad u sugaysa leedahay baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa hadhowna waxay gaadhaysaa shaqadii waxaanad qaban karinba bukhliguna waa wixii oo anfacaagii oo aan dadka gaadhaynin wadalaci dayni waghalabati rijaal waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof active ah qof nashiita qof firfircoon qof raba inuu wax qabto qof camal adduunyo mid aakhira midun ku foogan qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama waqtigiisu khasaare ahayn ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya walidaalika buu nabigu wuxuu tilmaamayaa waqtiyada qaarkood
أيعجز أحدكم بنبول ورمتكين ميو كري وايا أن يكسب كل يوم 1000 حسنة مالك استيناد كن حسنة شقيسة تمية دودي كري وايس نرجي ماشي فديبا وحيري كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة ومتكا يسوق كن حسنة وشقيسان كرا كن أجر وهيلي كرا قال يسبح 100 تصبيحة فيكتب له 1000 حسنة تبغى القربة سبحان الله ورانيسا يا waxa lagu qoraya سبحان الله intay ka qaadanaysa boqol goor سبحان الله waa less than 1 minute ka waran hal daqiiqo oo noloshaada kamid ah hadaad kun xasana shaqaysan karto saacadii misaad shaqaysan karaysa waxa meesha taala markaa nabigu wuxuu leeyahay qofkaasi subxaan allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada kun xasanana waa loo qoraa aw yuxatu canhu 1000 khati'a ama kun dambaa laga dhigaa cajsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan sawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay acjasu nnaasi man cajasa can idducaa أعجز الناس من عجز عن الدعاء dadka waxa u caajisnimo badan deninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo waabkhalu nnaasi man bakhila bisalaam dadka waxa kaloo u bakhaylsan buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum waa duco inaad dadka u ducaysad kala bakhaylaysa أيها الأحبة وهلنا عجزه مرار بدن بنقضى جهلية مرار بدن بالسبب عجزه كانت عيتها يقون درضة وهي سبحان الله أدانا أجر كذا قرن إنه أقون درك وهي سطة أقون درضة وحي كانت تقفك إنه وحبق بموايه تقدر توقف أيضا له جهلني ما هي سطة ولو حوق بدني ولو الذكاء جيسو intelligence kiisu uu sareeyo walow aqli badan yahay mar hadaan muntaj hayna wax soo saaraynin waxay yiraahdaan nolosha waxa qiimaha ku sameeya ma aha inaad aqli badantay ee waxa weeyaan bay yiraahdaan inaad hardware kartay nolosha taas raad ku leh qof xoog wax u qabtay inaad tahay garadka badan hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kasta dadki u tahay hadaad qof leeyziyatay qof aan firfircoonayn hadaad tahay garad bandid waxba ku kordhin mayso si awgeed buu nabigu wuxuu tilmaamayaa ama bas aan aayada quraanka tilmaamo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu quraan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dambiila noqday arday u noqday tuke qiyaas inaad tuke arday u noqotid tamar darradu halkii gaadhay sadaraadad baa ilaahay wuxuu leeyahay fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha al-ghurab fawari saw'ata akhi fasbaha min an-nadimin in aadamkii walaalkii dilay markuu dambiga geystay walow xoog weynaayo xooga walaalkii ku dilay uu qabay kadib aqoon darrada haysatay waxay noqotay si uu galo meydkii walaalkii buu garan waayay ilaahay baa wuxuu soo diray tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray tuka kaloo dhintay god u qoday oo aasay wuxuu baray markaa in wax la xabaalo wuu halaan halay ama wuu calaacalayo wuxuu leeyahay yaa waylata a'ajaztu an akuna mithla hada al-ghurab halaagaygiyo kaalaye ma waxaan ka liitaa ma waxaan ka waxtar xumaaday inaan tukahaas oo kala noqdo idan jahligu tuku macallinkaaga dhigi dad badan oo maanta Soomaaliyeed iska fadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaan bay garan waayeen jahliga fadhiisiyay beersi loo qoto ma garanayo wax kale si loo sameeyo ma garanayo aqoon si loo barto ma garanayo jahli baa fadhiisiyay jahligu marka dadka uu duleeyaa إذن أقونته هي علمه ومن القوة المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير
quwada la sheegaya aqoonta ka mid ah saawgeed ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam inagala dardaarmayaa istacin billaahi walaa tacjiz ilaahay kaalmayso oo isticaanadaada ilaahay kaalmayso hana caajisin qur-aankana ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa in badan baa ilaahay wuxuu qur-aanka kaga warramaya reer banu israa'iil oo la leeyahay khuduu maa aataynaakum biquwa war waxaan diinkaanu idiin soo dejinnay war si ijtihaad iyo firfircooni iyo xoog uu ku jiro khuduu maa aataynaakum biquwa baa ilaahay leeyahy نبي موسى محايل هيلي وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها إلهي نبي موسى كلي فخذها بقوة سددال يتمر كتشر تقاضى خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا مركي إلهي النبي يحيى لها اللي يا يحيى خذ الكتابة بقوة والنبي يحيو كتابك سي حوغان وقادة بالليل سي جدية سي اجتهاد كتشرو سي الددال يفر فرعوني كتشرتو إلهي كتابك سو قادة بالليل وحا قرآنك إلهي وكسي فينيا دادك وهسك يا عكسك هيا إن استفادة منافقين تطي وهسك إلهي إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى منافقين إلهي وعقوت المام صلاة هذا وكعا وكعا إيغو كسالى إيغو وهسي عاجس هيو ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى صلاة لما يما دنبا إلهي إيغو حالة كسوغان مويان أيها الأحبة markaad wahsato acmaashu way isfuulfuushaa wixii maanta kugu habboonaa inaad qabato markaad qaban weydo wayse sii kortaa sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi athaaqaltum ila alard war dadka mu'miniinta ahu maxaa idinku dhacay oo haddii la yidhaahda ilaahay tiisa usoo baxay jihaadka usoo kaca athaaqaltum ila alardi baa la yidhi maxaa dhulka idinku cusleeyay ayaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala maxaad dhulka isugu nabaysaane u kici kari weydeen aradiitum bilxayaati addunya min alaakhira ma adduunka aakhira ka jeclaateen baa ilaahay leeyahay famaa mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil ilaa tanfiruu يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيها الأحبة kuwa munaafiqiinta jihaadka ka wahsada ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay sifaadka munaafiqiinta ka mid tahay taasi yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fanfiruu thubaatin aw infiruu jamiica waina minkum laman layubati'anna waxaa idinka midaba ilaahay leeyahay mid dadkaba cagsi gelinaya oo fadhiisinaya oo dib u reebaya